wuxuu maray wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradii hore la kala qaybiyay ee dastuurka iyo arrimaha federaaleenta oo qayb aniga aan ka ahay arrimaha dastuurka federaaleenta iyo arrimaha dimuqraasiga oo loo dhiibay muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ayadan waa kormeer xafiis ahaan habkii u dhisneed inuu arko iyo shaqaalihii meesha joogay sidoo kale wuxuu maray wasaaradii qorsheynta iyo wasaaradii ganacsiga sidoo kale meesha ku yaala xaruntii ahayd beeraha oo hadda lagu daray wasaaradda deegaanka ayadana runtii shaqaalaheeda meesha ay joogaan ayadana si uu kurgalo habkii u shaqeyn lahayd isbedeladaas iyo sida loo sameyn doono mustaqbalkii habkii loo kala maareyn lahaana uu kurgalaya hadduu ilaahay yiraahdo waxaa raacsanaa oo ka baxsan dalxiiska wasaaradda waxbarashada ayadana uu kormaray kormeer ku sameeyay marka runtii saakay shaqadiisa waxay u badneed kormeer inuu arko shaqada dawladda abkii u socotay habsami socodka intuu soo magacaabay xukuumadda dawladda insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo ee muujinaysa hididiilaha iyo hor socodka in la arko sida loo shaqeynayo wasaaradda inuu arko shaqaalihi inuu arko uu kurgalayo marka waxaan leenahay insha Allah waxa la sugo inay tahay in sidii loo kala maareyn lahaan hore u sheegnay isbuucii hore shir khamiislaha shaqooyinka muxuu ahaa dawladda shaqooyinka wasaaradaha inay isku dhac ka imaan aysan noqdaan wasaarado wada shaqeeyo oo ku saleysan siyaasadda dawladda iyo habkii loo horumarin lahaa